السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo wararka ugu waaweyn aflaamta Hindiga ee channelkeena waxaan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay aflaamta Hindiga uu qayb ka yahay aktarka caanka ee Amir Khan oo u hambaliyay aktarada caanka ee Priyanka Chopra waxaanu leeyahay wala Priyanka ay filinkaadu ma sugi karo Sky Ben oo hadda qarka u saaran la sii daayo maya Hrithik Roshan iyo Tiger Sharif wax ay ka wadaan filimka war waa waxaanu caadi ahayn haddaba mid kamid ah directorada actionada ee filmada Hollywoodka ayaa ka yaabay wuxuu Hrithik ka sameynayo iyo Tiger ay ka sameynayaan filimka war actionada qaar caadi ma ahan waa sidii filmadii Mission Impossible iyo Fast and Furious iyo waxaanu eegi doonaa wararka loo qayb ka yahay Abhishek Bachchan oo jiraya filimka Ajay Devgan uu soo wada Ajay iyo Abhishek oo markaa wada shaqeyn doona halkaas sidoo kale Priyanka Chopra odaygeeda Nick Jonas oo u dabaaldegay dhalashadiisa iyo warar kale oo xiiso badan oo aflaamta Hindiga aan ku soo qaadan doonaa asxaabay haddii aad channel ku xustahay noogu subscribe garee channelka si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeyay aflaamta Hindiga okay waa yahay waxa aad iyo aad loo hadal hayaa filimada Hindiga gaar ahaan filimka Hrithik Roshan iyo ninka la yiraahdo Tiger Sharif ay soo wadaan waa filim noociisa aan horay loogu arkin Hindiya waa tan hor kugu sheegay filimkan waxa lagu jilayaa wadamo kala duwan iyo magaalooyin kala duwan baa lagu jilayaa war ayaa leedahay filimka kanu Hrithik iyo Tiger Sharif baa wada waa laba nin oo wada actionistayaal ah oo aad iyo aad u qatar badan weeyaan haddana filimkan waxa la isugu soo aruuriyay directorada actionada dunida la isugu soo aruuriyay filimkan film caadi ma ahan directorada actionada ku qatarta badan ee Hollywoodka inta la soo qabtay la keenay waxa la filimkan dadka looga yaabay la rabaa bal fiiri Hrithik Roshan wuxuu sameeyay bal fiiri diyaarad korkeeda baa action lagu sameeynaya filimkan actionada lagu sameeyo noociisa hore looga maan arkin Hindiya Tiger iyo Hrithik Roshan waa laba nin oo aad iyo aad u qatar badan maalin dhaweyd way kala hadleen labadooda yaani director filimka uu hadlay filimkan war sidoo kale waxa hadlay Hrithik Roshan baa hadlay Hrithik Roshan wuxuu yiri markii filimka la soo bandhigay waxaan codsaday wiiri yaani waxaan dhahay wiiri hadii filimkan uu ila jireen Tiger Sharif aanu filimka ma jirayaan iri kula ya Hrithik baa sidaas u aaminsan ka war wiilka Tiger Sharif la yiraahdo oo Jack Sharif dhalay ya Hrithik wuxuu yiri markii filimka la soo bandhigay oo directorada filimka aan la fariistay iraade war Hrithik oo filimkan war in insha Allah laga raba la yiri waxa igu soo dhacay Tiger waxaan yiri haduu san Tiger ila jilaynin anigu filimka ma jilayo hatta directorka filimkan baa hadlay war wuxuu yiri isagana hadii filimkan uu san wax ka jil lahayn Tiger Sharif guud ahaan filimku waa iska la laabi lahaaba macna ma la jil lahayn ba marka filimka kan waa filim hadana sidoo kale filimkan muhiimada kale uu leeyahay waxay tahay waxa isla jilaya nin ku dayin jiray ninku jeclaa iyo mid hadda ku dayina midkii ku dayin jiray yaani muhiimadu waxay tahay Hrithik Roshan waa actor weyn oo wax badan ka soo horeeyay Tiger Sharif waana actor wax badan qabsada weeyaan Tiger Sharif wuxuu cadeeyay mar dhaweyd in actorka uu ku daydo filimada Hindiya uu yahay ee dhiirigelin isagu uu yahay Hrithik Roshan wuxuu yiri actorka aan ku daydo waa Hrithik Roshan buu leeyahay Hrithik wuxuu maalin la soo cadeeyay hadii uu igu dayin jiray buu leeyahay Tiger Sharif hadda isaga ba dhiirigeliyay wax buu leeyahay calayhi xal haddaan u soo laabano actionada filimkan lagu sameynayo waa actiono lamida filimada Mareykanka ee Hollywoodka Mareykanka sida filimada Mission Impossible iyo Fast and Furious ya filimada Mission Impossible ee aan caadiga ahayn ninkii Tom Cruise lagu bartay iyo waliba kuwa Fast and Furious ee baaburada orodka badan ee Vin Diesel iyo kuwa kale ay ku jiraan waxa filimkan hadda ay soo wadaan war kuwa buu lamid yahay ayaa leeyahay haddaba waxa ka hadlay directorka filimada Hollywoodka waana directorka gaarka filimada actionka Bollywoodka waxa weeyaan Hollywoodka Mareykanka weeyaan waa ninka filimada actionka ugu sareeyay uu ka mid yahay directorka waa la yiraahdaa Paul Channing oo ka soo shaqeeyay filimo badan oo ay ka mid yihiin Dark Knight iyo San Andreas wuxuu cadeeyay filimka Hrithik Roshan iyo Tiger Sharif ay soo wadaan war in uu la mid yahay filimada Mission Impossible iyo Fast and Furious ee ah filimada Mareykanka oo kale yaani wuxuu ku leeyahay waxaan aaminsanahay uu ku leeyahay filimada Bollywoodka waxa hadda cagta saaray buu leeyahay filimada Mareykanka yaani wuxuu leeyahay filimada Bollywoodka hadda wax ay ka bariyaan ma jirto ku leeyahay filimada Mareykanka yaani actionada filimka lagu sameynayo wuxuu la mid yahay ayuu ku leeyahay filimada Mareykanka ee actionadooda aad iyo aad loo xiiseeyo haddaba filimkan aad ka loo sugay ee war ee actionada badan ay ku sameynayaan Hrithik Roshan iyo ninka la yiraahdo Tiger Sharif waana filimka aad loo buunbuuniyay ee aad ka looga hadal hayo Hindiyo dhan baa heegan ku jirta goormuu soo baxaya Tiger iyo Hrithik filimkooda lagu wada hayaa haddaba filimkan aad ka loo sugayo waxa isha lagu hayaa inuu soo baxo labada bisha October ayaa lagu wada inuu soo baxo filimkan weyn ee war waana film laga sii dayn doono yaani luqado kala duwan lagu dayn doono Hindiya kaasi luqado kala duwan ba waxaana filimku lagu sii dayn doono bal leeyahay Hindi
Tamil iyo Telugu baa lagu dayn doonaa leeyahay adduunyaduna aad bay u daawan sugaysaa filimka kaayo marka October 2 ayuu soo baxaya filimka kan actionadiisa aadka loo amaanayo ee la barbar dhigayo Mission Impossible on film aan caadiyan ah iyo Fast and Furious oo filim kale oo tagay ah hadii la barbar dhigayo filimkan ay soo wada heritage tagarshir filim caadi ma ahan directorka filimada Hollywood ayaa wuxuu taagan yahay filimkan waa filim lamid ah kuwa Hollywood ku leeyahay marka filimkan waan ogahayba in la isugu tagay oo director aan caadi ahayn action la isugu keenay wadamo iyo magaalooyin kala duwan lagu diray marka filimka waanu sugnaa wuxuu noqdaaba sidoo kale wararka ugu waaweyn ee iyana Bollywoodka Hindiya waxa kamid ah aktarada qaar waxay isaga soo biirayaan YouTube ay channel ka sameeysanayaan aktaradii baa inay YouTube ku soo biiray baa lagu leeyahay aktarada Bollywoodka oo yaani in badan dakhli iyo fara badan haysta in nolol maalmeed aad u wanaagsan iyo dakhli ay ku noolaan kara haysta ayaa waxa lagu leeyahay hadda waxay bilaabayaan inay iyaguna meereystaan YouTube-ka oo iyagu la arko inay tahay meel dadka noloshoodu xoogaa yar ay waxaysan tahay wax ku raadiyaan hadda aktarada YouTube-ka ayaa ku aktaradii baa lagu leeyahay Hindiya waxay bilaabeen YouTube-ka ay ku soo biiraan hadaba aktarka lagu magacaabo Kartik Aaryan waa ninka idin muuqday ayaa ku soo biiray lagu leeyahay isna barta YouTube-ka oo channel ka sameystay lagu leeyahay barta YouTube-ka waxaana uu kamid noqonayaa aktara badan oo Bollywoodka Hindiya oo iyana bilaabay in ay mataqaana yaani halkan wax ka raadiyaan sida Alia Bhatt oo Trisha hadda mid kamid ah kuwa hadda Hindiya ugu khatarta badan ah Farun Dhawan oo mid kamid aktarada cusub ah Disha Patani waxa lagu leeyahay kadib Alia Bhatt Farun Dhawan iyo Disha Patani hadaba ninka lagu magacaabo aktarka caanka ee Kartik Aaryan ay isna qayb ka noqday baa lagu leeyahay aktarada ku soo biiray inay channel ka sameystaan YouTube-ka marka kolba waxa laga yaabaa inay halkaas ku gadi doonaan filimada ay soo wadaan dhacdooyinkoodii filimada ay keeni doonaan waxyaabo badan bay uga hadli doonaan kolba laga yaabaa in haddana macnuhu wax kale iska jiri karaan yaani inuu ma taqaan hadii ay wax ka heli karaan ay halkaas ka qaataan marka waxa lagu leeyahay aktaradii Bollywoodka waxay bilaabeen inay YouTube-ku meereystaan kadib Farun iyo Alia haddana Kartik Aaryan ayaa bilaabay baa leeyahay inuu YouTuber isaguna noqdo oo YouTube-ka ku soo biro marka aktaradii Bollywoodka YouTuber noqonaya lagu leeyahay dhan kale aktarka caanka ah ee Amir Khan ayaa u hambaliyay aktrishada caanka ee Priyanka Chopra waxaana uu sheegay inuu sugi leeyahay filimkeeda Sky Spin waa filim ay qayb ka tahay aktrishada tan ee lagu magacaabo Priyanka Chopra maadaama ay tahay aktrisho weyn wuxuu Amir Khan leeyahay Priyanka waan kugu hambaleynayaa filimka aad adigu keentay uu leeyahay Sky Spin waanan sugi laahay buu leeyahay inaan daawado filimka kan buu leeyahay filimkan waxa wax ka jilaysa xataa gabadha maalin dhaweyd isaga fariisatay filim jirida Zara Wazim taas oo cadeysay in filimada jiritaankoodu ilaahay uu kaga caroonayo ay muslim maadaama ay tahay waa gabar Amir Khan soo shacbixi filimkan wax ka jilaysa laakiin hadda xiliga filimka soo baxay waa xili iyadoo ku dhawaaqday filimada ay ka fariisatay Zara Wazim waa gabar muslimad ah ninka la yiraahdo Amir Khan ayaana soo shacbixiyay filimadiisa hore ku soo shacbixiyay waxay sheegtay inaysan filimada jilayn Hindiya sababtoo ah yaani waxay leedahay aqeedadeeda islaamka ay wax u dhimaysaa in filim aan jilay leedahay laakiin filimka wax bay ka soo jisay filimkan iyada ayaa ku jirto hadda soo baxay Priyanka ay wado oo Amir Khan leeyahay waan sugayaa Amir Khan ayaa waxa uu leeyahay filimka ay jilayaan Priyanka Chopra Farhan Akhtar iyo Zara Wazim oo yaristi isagu soo shacbixiyay laakiin hadda ka fariista filimada ee muslimka waxa uu leeyahay waxa uu yahay filim caadi ahayn buu leeyahay runtii anigu waxaan daawada buu leeyahay goosgooska borsmiintada filimku baan daawada buu leeyahay mana sugi karo leeyahay inuu filimkan uu daawada uu leeyahay hadaba Sky Spin waxa uu soo baxayaa 12 October buu soo baxayaa waa filimku uu leeyahay Amir Khan waan sugi lahay inuu filimkan daawada uu leeyahay borsmiintidiisa baan ku qancay buu leeyahay waan daawanayaa buu leeyahay filimkan dhan kale isla ninkeeda gabadha lagu magacaabo Priyanka Chopra ninkeeda Nick Jonas ayaa u dabaaldegaya dhalashiisa 27 oo atrishada ayaa ugu hambaleysay odaygeeda baraha bulshada waxaan leedahay xaajiga iyo hambaliyo maalin waxay sheegtay inay aad ugu kulashahay inay odaygeega cunug u dhasho yaani odaygeeda yaani Nick Jonas inay cunug u dhasho ay doonaysaa ayadu Priyanka Chopra ugu tahay ka weyn bay iska gashanaysaa waxay tiraan Hindiyaan Hindiya kuma soo laabanay tiraan waa weyn waxay noqotay gabadha ugu quruxda badan dunida mar noqotay iyada waxay aroosay Mareykan oo fanaan ba aroosay kabteeda iska weyn tahay iyada Hindiya kabtees ma gashanaysaa iyada Hindiya waxa suma baahna ayada kab weyn lay gashanaysaa nin Mareykan bay guursatay oo fanaana waxa la yiraahdaa Nick Jonas hadaba Nick Jonas wuxuu noqday 27 jir aktarada iyo dhammaan aktarada Bollywoodka qaarkood maadaama uu gabar Hindi laga qabo way u hambaleynayaan Nick Jonas bay u hambaleynayaan maadaama gabadhooda Priyanka uu qabo waa ninka qaaday heeso qayb ka ah heeskii Chilos heeskii Chinese
heeskii close 50 tof levels iyo hees kaloo la yirahdo under you haddaba ninka qaba batrishada hindiya ee baryaanka jabra wuxuu maanta noqday 27 sano jir buu noqday oo waa loo hambaleynayaa ugu dambeyntii aktarka caanka Abhishek Bachchan ayaa bilaabay dubista filimka Ajay Devgan soo saaraha ka yahay ama filimadu Ajay soo saaraya ka mid ka yahay ee Big Pool ayuu jilayaa haddaba Abhishek iyo Ajay Devgan ayaa filimkan isla keeni doona waana filimkoodii ugu horeeyay ee muddo kadib isla keenan labadan actor Ajay iyo Abhishek Bachchan ayaa hore isla keenay filimkii 2002 ee Paul Bachchan haddaba Ajay filimkii ugu dambeeyay hadda uu keenay wuxuu ahaa filimkii Man Marizian haddaba labada actor ayaa filimkan wada keeni doona filimkan Ajay baa soo saar iska leh waa filimada qofka uu isagu soo saarto weeyaan marka filimkan Ajay baa soo saaranaya isaga baana Abhishek Bachchan isla jirayaan waa Big Paul marka muddo kadib Ajay Devgan iyo Abhishek Bachchan isla shaqeyn doono tan iyo 2012 wararka ugu weynaa aflaamta hindigu maanta intaan ku gogoyn doona wixii warar ku soo kora aflaamta hindiya aflaamta hindiga wixii ku soo kordha in halka aan idinku soo gudbin doona insha Allah sidaas nabadgelyo